daawadayaal kusoo dhawaada idaacadda Somali Irish Media oo alaban uga barateen inaan idiin soo gudbino wararka caalamka. Maantii waxaa khadka taleefanka igu jira ama mayga marti igu ah mudane Suleymaan Cabdulaahi oo ah gudoomiyaha ururka Horn of Africa People's Aid in Northern Ireland marka lasoo gaabsho loo yaqaano Habani. Mudane Cabdulaahi kusoo dhawow idaacadda Somali Irish Media. waa aad baad u mahadsan tahay kudun waan kaga mahad celinayaa maaragtay inaad igu casuumto Somali Irish Media. mudane Suleymaan sida la socotid maalmahan adduunka waxaa qabsatay coronavirus oo sida ognahay Northern Ireland iyo Irelandba waxaa lagu sameeyay lockdown oo bandow ayaa la saaray. warbixintii ugu dambeysay dhankaasi UK bal naga sii halka uu cudurkii coronavirus marayo. walaal aad iyo aad bay xaaladdu kolley maalmihii ugu dambeeyey ay xaaladaha oo soo kordhaya xanuunka wadankan Ingiriiska oo boqortooyada Ingiriiska dhammaan aad bay kor ugu socotay oo maaragtay 50,000 bay kusii dhowda hadda maantay marka dhimashaduna waxa weeye 4,000 iyo 5,000 wax yar dhiman weeye. kolley numberka waxa weeye goboladu way kala duwan yihiin laakiin gaar ahaan waqooyiga Ireland waanu ka nasahannahay weli oo maaragtay dadka hadda xaaladaha la hubiyey ee maaragtay la ogaaday inay jiraan waxa weeye 1,086 qofood. waa hagaag mudane bal nooga waran dhanka Soomaalida guud ahaan UK iyo gaar ahaan dhanka Belfast oo ah magaalada aad ku nooshahay. guud ahaan de Soomaalida UK cid hadda tirakoob si gaar ah u tirakoobtay ma jirto laakiin Northern Ireland ilaa hadda cid aan ognahay oo xanuunka la soo dhacday ma jirto. dhanka wacyigelinta maadaama aad tahay mas-uul matala urur u shaqeeya dhammaan dadyowga kasoo jeeda geeska Afrika iyo qaxootigaba qaabkee ayaad uga qayb qaadataan dhanka wacyigelinta? waxa muhiimaddu waxa weeye anagu wadankan dadka waxaan ka tirsanahay sida oo yani sharciga ama wadanka waxa ka shaqeynayo ayaan qayb ka nahay mar walbana waxa weeye dadka intooda maaragtay bulshada u shaqeyso waxay ka qayb qaataan sidii dadka lagu wacyigelin lahaa oo maaragtay macluumaad loogu fidino luuqadooda loogu turjumo sidoo kale lala xiriiro dadka dardaran sida dadka waayeelada iyo dadka maaragtay u baahan in la caawiyo la garab istaago oo ayagana la caawiyo laakiin waxa ugu badan oo hadda dhowrkan wiigo 3 wiigo hadda xaaladdu taagnayd wacyigelin baa ugu badnayd maaragtay inta ugu badan oo arrinta laga wacyigeliyo iyo in la caawiyo qofkii markaas cidii la filaya inay jilicsan yihiin oo u baahan yihiin kaalmo gacan la siiyo. mudane dhanka Ireland oo ah wadan aad daris tihiin Soomaali badan in ay ku nool yihiin ka waran wada shaqayntiinu waa sidee? wallahi kolley waan iska warqabnaa oo dee dadka Soomaalida way isku socdaan laakiin ma jirto sida inta ilaa hadda waxaan ogahay oo macnaha midnimo ah oo ka dhaxayso Soomaalida waqooyiga Ireland ku nool iyo Soomaalida ku nool Republic of Ireland ama Jamhuuriyadda Ireland marka waa arrin aad loogu baahan yahay oo maaragtay hadda arrintaas hadda aad ka dhawaajisay su'aashaad weydiisay waxa ay igu soo xusuusinaysaa sida ay muhiim u tahay xaaladan adag inaanu yeelano isku duubni wax la meelaysto inta aynan maaragtay tusaale ahaan geeridu waa xaq waana imaanaysaa ama xanuunkaana ku imaanaysaa ama xanuuno kale oo ka dambeeya ama qof kale oo waqtigiisa sida ugu yimaado marka inaanu yeelano cudud isku duuban oo maaragtay aan wax meel sii dhigano waa arrin meesha ku jirta kudun oo loo baahan yahay aan samayno haddaanu nahay Soomaalida Ireland iyo Republic of Ireland iyo waqooyiga Ireland joogta labadaba. dadka qaar waa laga yaabaa inay yaqaanaan dadkaas oo maaragtay
ama kalkaaliyaasha ama meelaha oo dadka waayeelka lagu xanaanaya ka shaqeeya ama dhaqaatiirta ah. Waa dad kooban waaye horta Northern Ireland dadka macnaha aad uma badnaa, laakiin waxaa laga yaabaa Republic ama Jamhuuriyadda Ireland inay aad ugu badan yihiin dadkaasi. Laakiin waa arrin lagama huraana oo dadkaasi inaynu garab istaagno oo maaragtay ay noqdaan, yacni caruur bay leeyihiin, qoysas bay leeyihiin. Haddii ay soo dhacaan tusaale ahaan qof oo ama kalkaalisa hooyo keligeed oo meel uga shaqo ka raadinaysa ay xanuunsato, ama maxaan ku idhaahdaa qoyskii kale iyo ilmihiiba waxay u baahanayaan in la caawiyo. Sidoo kale waxaan leeyahay Soomaalida aynu fadhiga ka kacno, isku duubanno, bulshada aanu ku dhex nool lahayna aan wax la qaybsanno oo maaragtay dhibka aan la wadaagno iyo dheefta labadaba. waa hagaagkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka Honor Freak People's Aid in Northern Ireland marka lasoo gaabshay loo yaqaano ahaa bani warbixin guud iyo mid gaar ahba naga siiyey dhankaas UK iyo magaalada uu ku nool yahay Belfast. aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga mudane Cabdulaahi. adigaa mudan waa mahadsantahay.